السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قارئة سود وهذا سيتيهين عفوا قبطان وادي الرجينية. ما تعرفوا إن الله يوينكا المهير قبيتهم بلود جاري أما هذا أسودو أما كبحي هدي عدن هرو محاكو هاي تأذن واستعمال وحياة بين كل وذاقه. marka insha Allah waxa jiro xalaqyabo hooyooyin badan oo hada cusub ama hooyooyin maxaan ku dhahaynaa talooyinka siiyo marka talada horta ugu muhiimsan aan siinayo hooyada waxa way ilmahaagu maalintu 12 bilood gaaro ama naasi ama masaasadsi waa inaad masaasada ka goysaa oo aad bartaa koob hada koobkaan aan ku tusayo marka masaasada stage ugu horeeya masaasada ka goynaysid baa isticmaalaysaa ilmihi waa nuugaya caanihiina kaama soo daadanayaan adiga oo waa sidii masaasadii oo kale ilmihiina wuxuu baranayaa suu qabsad oo caadi u caabaya waana kala fududeyn kartaa oo hoos baad ka kala dabcin kartaa oo xilli caanuhu ka soo baxaan oo caano fiican ka soo baxayaan iyo xilli aysan caano ka baxeen oo kala kartaa tan labaad aan rabaa inaad la wadaagana waxa weeyaan ilmahaaga markuu ilkaha ugu horeeya u soo baxaan in adigu soo gadid adayadana afar stage ay leeyihiin oo markay goosaha soo baxaan mid bay leeyihiin ilkaha ugu horeeya markay soo baxaan kana isticmaalaysaa oo fartada galaysaa ku cadayaysaa kaasa ku xiga markay soo kala baxaan marka iyaduna waa very important ilmahaaga markay ilkuhu soo baxaan ilkaha u cadayid ee aadan isdhigan mid kale aan rabay waxa weeyaan la wadaaga waxa ilmaha inaad mirta ka goysid oo aadan habeenkii aadan mir ku sii wadin hadaad naasisid iyo hadii aad caana siisidba waa muhiim ilmahaagu inuu habeenkii hurdo dhamaystiran seexdo sariirtiisa bartid iskuna daydid inuu ilmahaasi hurdo nadiif ah oo raaxo leh oo waqti uu seexdo iyo waqti uu soo tooso iyo waqti uu cuno iyo waqti uu ciyaaro iyo waqti uu samaysid aad maxaan ku dhahay taa u samaysid oo ku yeesho waa muhiim ilmaha inaad maxaan ku dhahay masaasada ka goysid maxaa yeelay ilkihiisa iyo ka hadlaynaysaa caananahaana ha ku seexin iyo masaasada ha ku seexinin marka sariirtiisa geysid intaad sariirtiisa geyn ka hor cunadiisa iyo caanihiisa u dhamaystir ilkiisana u caday kadibna sidii qof weyn sariirtiisa u seexi hadaa isleedahay mirtu ilmaha waa kurisaa ama waxbay tartaa ama habeenka soo kacdid asagana hurdo xumaa ku dhacaysa adigana way ku dhawaysaa wax ay taraysana malahan marka ilmahaagu maalintu 6 bilood madaxa kala baxaba bar inaad habeenkii ilaahay u soo seexisid hadaa naas ka goysid iyo hadaa naas ka siisidba marka insha Allah asxaabta idin rajaynayaa waxaan rabay taladaas yar inaan hooyooyinka in yar baraarujiyo ha isilaawin hadihin ilmaha naas basan siiya cunadiisa caanihiisa wixii dhan ka ilaawin adoo naaskaaga siiyo ugu dar waxyaalihiisa dhan u baahan yahay oo dhan insha Allah like asxaabay igu soo deeqa insha Allah iyo adariski falowga thank you very much dhamaantiin